qoraxdana daruur lagu rakibay qaranka ka dahday burama inay raaxataa laysku wada raaciyey fiyo waxaanu haysto qalbigu ila riyaaqaba inaan joogo rugihii cilmiga runi ideersiisay subaxdii markuu rabku doo ee mayigu raadeeyo reexaan udgoon iyo adoo ruxub ka soo toosay dhulka oo tigaad diirax yiri raarka sare joogto oo janta aad rogo tidhaa raysku daba yaallo quruxdooda buuraha rakada ubaxu rooshaamo qoraxdana daruur lagu rakibay qaranka ka dahday burama inay raaxataa laysku wada raaciyey iyo waxaanu haysto qalbigu ila riyaaqaba inaan صح waxaan jeclahay markii ugu horreysay tateynay ama markii labaad bal noogu warna cabdirasaaq ow سهاش تارجت سهاش su-aashan waa weydiinaya horta noogu warramo hore ma u tagtay mise maanta kugu horeysa magaalada boorama waa markii saddexaadan hadda ku socdo laba goor ayaan tegey markii ugu horreysay aan tegay waxay 2017 si wanaagsan su-aalahan jecelahay su-aashan jecelahay inaan ku weydiiyo boorama waa tagtay waa markii saddexaad ee tagto waxaad nooga sheegtaa wax saddex astaamood ama saddex calaamadood oo magaaladu ay leedahay isla markaana ay magaalooyinka kale Soomaaliland marka la eego ay kaga duwan tahay ama ay ku tilmaaman tahay magaalada Boorama adigu soo kooyso saddex kale magaalada saameyn badan bay leedahay laakiin saddex ka mid ah haddaan isku dayo mid waa jaamacadda Calmuudka aqoonta talabaadna waxa weeye inay tahay magaalada saddexaad oo yada magaaladii madaxweynaha labaad Soomaaliland lagu soo doortay dowladnimada Soomaaliland lagu soo dhisay tasbaxaadna waxay loo qornaa waa magaalo ku saaxiiba waxaan oran karnaa waxay caan ku tahay oo yada dalxiis ay caan ku tahay kale loo karnaa caan badan marka dalxiis la yiraahdo dhinaca galbeed ee Soomaaliland waa magaalada koowaad ee loo baxo xagga dalxiiska kale caan ku tahay saddexda badan baa soo doortay ما يزحسيه مساء حسنه وحنا وسدوي سمت عبو وجهه عبو كل قدر حتى الحين وحنا خلدان حسيبني سيفيزيشن كحضارتي ruxub ka soo toosay dhulka oo tigaad diirax yiri raarka sare joogto oo janta ورحمة الله وبركاته أدبان إسلام دمان على سمانية خاصة أحمد داود تيم كحران ما شاء الله ما تفكرنا هي مرمى سفرة قصة محنا ساك من دليل هندسة ونقول صعنا في برجعي فرفا ومركز ما شاء الله دال بدن ليدرس في بداية القناة يمكن تركيز كروح بدن قادم دون إن شاء الله تعالى وحرجيني أنا مركز كروح بدن يقوي كروح بدن ونأد وصل تركيز دونا لما أنتي نحن لنا تكسب برجع نحسن كفايدة ملك هواوي ملك سفر بدن إن شاء الله تعالى ورجينا نرجع إن شاء الله. السلام عليكم بالنسبة لسلامتي دار سلطان با ما تروح تسوقنا المجال اللي بنيجي تدريج حين على نيت بورما حكى صوت هذا البرنامج هذا روح بدن عم طبعا نيل ليدرس كي بشي قدام بيسمى يدال كي ربنا بيش على الصعيد مكانه يا 5 سي سي ساتفس مكانه ليدرس كمان بس شيء فريسة أو كتير قاطع شيء فريسة في البرنامج بس قاطع قاطع وإحنا لنا قبليه يا كانوا كانوا سلوك أوارس هي ساتفس كعبار منها عارفين بحدنا مرة واحد لنا هاي ولا صحنا إن شاء الله برنامج كان قدر إسماره يبور من العالم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تروح الحاجة نوعهم مرتيع وما ندرس كل دونا نقول بمجال هالجيسة وحن كسر ولا بورما إن شاء الله وحنا نقف صوم دونا إسبراشة إنفنتيو يدل برشة إنتنا وكذا ما تروح اللي هي سفر قوة قريب كم إذا برين كانوا أول ضمن أكتر
ka faa'iidaysta dalxiisyada waddanka gudihiisa si aad u gaadhaan dalxiisyada waddanka dibaddiisa forever be proud بركاته ما شاء الله أبن فرح سنة عمانتنا بورمي مادي مالك كوبادنا يتاي جناحسي ما شاء الله فريق اللي برودكتي أن كوي مادي أبن فرح سنة ما شاء الله كم حرتيني أنا ملا بدنا نأرق بورم ما تبي قريسة أن سو أركو سأدرتيني أنا شعلها هنا سو أركو جماعة عمود ما شاء الله ما أنت ويكون وذريات ها محطة كلا ليلة ما شاء الله كلنا حلاي هاي صبر جناحسي ما شاء الله مر سفرنا ما تبر ما نكون من نجوا كوي لوكال قبل هذا خلياته ويان وضمن كسبة وين ونتجنا إن شاء الله. إن شاء الله. بورما إلي راحت ليسكو دراعي في وحان وهيسو قلبي إلى صاحبي هذا waxaan toos soo gaarnay waa jaamacadda Camuud Boorama oo aan maanta markaa dadka qaar ay markii ugu horeysay ay tahay aniga kale waa markii labaad dhalinyaro fara badan ayaa runtii ku faraxsan inay soo arkaan xaruntii aqoonta oo markaa ay waqti ku soo wada qaataan isla markaana ay ku soo damaashadaan tababaraan ku soo bixin doonaa insha Allah markaa ku soo dhawaada jaamacadda Camuud iyo quruxdeedii iyo gobolka aqoonta Boorama. Hello Forever Family maanta waxaan ku suganahay magaaladii Boorama gaar ahaan jaamacadda Camuud waxaan leenahay dhammaan Forever Family ku soo dhawaada magaaladii Boorama waxaan leenahay la dalxiis علميga runi idersiisay subaxdii markuu roobku doo ee mayagu raadeeyo reexaan udgoon iyo adoo rucub ka soo toosay dhulka oo tigaadii raxiri raarka sare joogto oo janta aad rogoti halkan hadda aan joogo ee aan idinkala hadlayaa waa hoygii aqoonta jaamacaddii geeska Camuud University gobolka Awdal Boorama runtii halkan waa meel aad u qurux badan oo mucjiso ah oo ay ka soo baxeen dadiyow aad u fara badan oo aqoon-yahanaa oo hadda qaarkood ay madax yihiin qaarkoodna ay yihiin macallimiin qaarkoodna ay professor yihiin waliba dunida caanka ah halkan waxaa laga soo saaraa ubax fara badan oo markaa iyaguna dib ugu celiya aqoontii ay barteen dadyowgeennii Soomaaliyeed oo dhan Camuud waxay gaar la tahay inay tahay hoyga aqoonta inay gaar la tahay waliba meel cimilo degan leh buura dhexdooda aadna runtii u buuq yar qofka ardayga halkan wax ku baranayaana ay si fudud uga degayso aqoonta markaa uu baranaya iyadoo ay ka caawinayso beecadda iyo dhirtan lagu beeray ee waliba la ilaaliyay ee markaa loo ilaaliyay si ardaydu ugu nafisaan xilliyada ay fasaxa ka yihiin waxbarashada iyo aqoonta anagu maanta markaa waxaan marti ku nahay oo aan soo gaarnay waa gobolka aqoonta gaar ahaan jaamacadda Camuud oo aan hadda idinkala soo hadlayo waxaan aad u jecelahay inaan taariikhdeeda kooban idin soo tabin doono isla markaana anaga laftaydu maanta ku leenahay training aqoon isweydaarsi isla markaana aan ku leenahay inaan abaalmarin ku bixino anagoo ka socono markaa shirkadeeni weyneed ee caalamiga ahayd ee Forever Living Product waxaan idin leenahay nagula damaashada nagula dalxiisa Camuud University gaar ahaan magaalada Boorama qaybaheeda kala duwan waad mahadsantihiin halkan insha Allah ku maamuusi doonaa shacabkeenu halkan uga tumi doonaa waynu la farxi doonaa insha Allah hadii Ilaahay idmo waa guuleystayaal waa la dadaa waa la tartamay waxa yiraahdaa hadii la tartamo maxay la kala dheeray halkan waxaa inooga bilaabmi doonaa challenge aad u qosol badan oo ay sameyn doonaan xubnaha kala duwan ee company-ga ee halkan aan ugu talagalay maanta inay ku madadaalino isla markaana aan entertainment ugu sameeyno maaweelo aad u qurux badan challenge-gan wuxuu noqon doonaa challenge la sheegi doono shay kasta oo marka aad aragto adiga oo marka afkaaga aan dhaqdhaqaajinayn laakiin ku sheegaya ficil gacmaha ah isla markaana jidhkaaga u dhaqdhaqaajin doono laakiin aan loo baahnayn inaad afkaaga kala qaado si markaa aan lagu fahmin oo afka lagama hadlayo bal markaa ila daawada insha Allah wax meesha ka dhaca waxaana hadda soo kici doona labada xubneed oo ugu horeeya isla markaana furi doona challenge-ga ay isku xiri doonaan dabcan mid kamid ayaa la tusayaa sawirka
midka kalena waa laga qarinayaa marka qofka la tusay waa inuu ka kale ugu sheegaa si ficila sawirka la tusay wuxuu yahay marka qosol badan baa soo socda daawada si fiican u daawada insha Allah challenge-yadan waynu soo badin doonaa barnaamij kasta iyo bandhig kasta aynu qabanno challenge-yo qurux badan way ku dhex dari doonaa oo aad khalkhalkiisa wata ما دما يسق متصير hawsi sheegin idinku arkay de walo baahay in aragtaan soo taarka saasmi ka jeedi ها بلو بشرح Amsa. ما كان فعل وشك فعل كده هكاك شويه والله كاتب لي كده ابو ماي والله كده يا هو عم حاجه يستحمل ده بدل عادي كم بدل سمع حاجه يستحمل اصلا انا فكرت هالين إلى تسونا أبو شهر لكن عاد بدو أكيد يا رب عندي تغير بس حمسي اليوم عندي صباح عارف كنا كلب كسجل اوكي ها ما بتعرف بس كده مارك halka runtii waxa ka dhacay qosol iyo xaraabe aan naba caadi ahayn qof runtii soo bandhigay digaag oo digaag lagu yiri soo bandhig qof lagu yiri sidoo kale soo bandhig waxa loo yaqaano daanyeer oo firixda ay ka dhamaanayso mid runtii soo bandhigayay oo soo bandhig lagu yiri adigoon afka ka sheegin waxa loo yaqaano bakayle oo si alla soo tilmaamo garan waayay taasina waxay ahayd intii aan ugu talagalay entertainment-iga iyo maaweelada haddana abaalmarinihii baynu gudbi doonaa insha Allah inaynu guddoonsiino dadkii runtii guuleystay aynu u dabaaldegaynay barnaamijkan aynu iskugu nimid soo dhawaada liidarka ugu horeeya insha Allah soo kicin doonaa Raxma Ibrahim Caabi oo shantiisii xidhay aan doonayaan waayahay waxaynu sidoo kale u yeeri doonaa liidar Khadra Nuur Ismaaciil maasha Allah
leaderska iyaguna aynu garan karno bishii dhaweytoole waxa weeyaan dadkan xagga markay soo istaajino reer Hargeysa si fiican ma isku garanayaan xaruntii la weyman jireen waa leaderska dadaalka badnaa ugu dhaqdhaqaaqa badnaa waynu garan doonaa insha Allah waxaanu yeeri doonaa insha Allah leader Cabdirasaaq Ibrahim Maxamuud oo isaguna kamid ah chief priest insha Allah way ما شاء الله همبليه waxaan sidoo kale soo dhaweynaynaa leader waa leaderkiisi ku qoos qornaanaysna uu inala joogo waxaan soo dhaweynaynaa leader Nadiira Cusmaan Cumar soo dhawo leader ما شاء الله waayahay sidoo kale waxa kamid ah leader Xasan Yusuf Ciise soo dhawo leader leaderka u dambeeya ee lixaad رون عبد الله محمد رون واو عثمان عمر halka runtii waxaynu ku soo gabagabaynay kuna soo gunaanadnay abaalmarino qaaliya iyo waliba hadiyado waaweyn iyo waliba maamuus aynu sameynay dhammaan tiimamkii dadaalay bishii la soo dhaafay ee leeflada waaweyn xaqiijiyay iibabka fiican sameeyay halkaasoo markaa aynu ugu dabaaldegnay hambalyadoodii sacabkoodii dhiirigelintoodii iyo waliba sawirradii maasha Allah runtii xafladana xaflad aad u qiimo badan bay ahayd heer sare ah xafladaas oo nooga dhacday Camuud University isla markaana inooga dhacday gobolka Awdal Boorama waa maalin aan xusi doono xasuusan doono insha Allah aad baad mahadsantihiin markasta waxaan idin leenahay la dalxiisa forever la jooga forever la shaqaysta forever meel kasta aad joogto waan idin jecelahay we are in forever family ما شاء الله ما شاء الله congratulations ليدر رحمة إبراهيم عابي ما شاء الله إذا قدر صدوا قدرها إذا قدر waxaa ka mid tahay leaderska bishana aad chief fariiska amba certificate ku guuleystay 5cc qualification bal maxaad kala dareemaysaa ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدك كروكا دمانتي والسلام يا وحن حتى ما شاء الله